dhammaan shaqaalaha shirkaddu waxay ka cabsadeen inay ugu galaan wiishka madaxweynaha shirkadda, balse gabadhan shaqada ku cusub ayaa orod ku gashay waxaanay laabta gelisay madaxweynaha shirkadda, waxaana saa isku xidhay wiishkii. marka muddo laysu dhowaa ee laysku dhaygagsanaa bay raali gelin bixinaysaa, waxaanay u sharaxaysaa sida wax u dhaceen iyo inay degdegsanayd. haddana waxay eegaysaa saacadda, waxaanay degdeg kaga baxaysa wiishka ama elefaytarka, waxaanay oogada ka maray ama ku dhacaysaa mar labaad booskii shirkadda. shaqaalaha shirkadu way yaabayaan, waxaanay moodiyeen qof waalan. kadib mar kale ayay kicinaysaa booska shirkadda iyadoo raaligelin kale bixinaysa, weliba waxay istaajinaysaa booskii aan loo dhowaan jirin. maalintaas ma ahayn maalin u fiican shaqaalaha cusub, waayo ninka ka sareeya u keenaya faylal aad u badan kuwaas oo laga rabo inay dhammayso shaqadana ka biximayso ilaa ay faylasha dhammayso hawshooda. inkastoo ay aad u daashay, waxay dhammaynaysaa shaqadii. waxay shaqada ka soo baxay xilli dambe oo maba jiro cid kaloo shaqada ku hadhay baarkin. Mary oo shaqo badan qabatay oo daashayna ayaa waxaa la gaadhay xilligii ay bixi lahayd. markii ay hoos u degtay kuna dhowdahay gaadhigeeda, waxay aragtay niman saqajaamin ah oo iyada raba inay fawdeeyaan, waxayna ugu yeedhayeen cabitaan, balse way diiday. iyadoo aad u baqaysa ayaa waxaa gaadhi ka soo degaya madaxweynaha shirkadda. markay arkaan way ka ordayaan, kadibna wuxuu ku yidhi, aniga ayaa ku qaadaya oo gurigaaga ku geynaya. Mary waxay aad uga heshay sida uu u difaacay, waxaana ay ku faraxday xilliga fiican ee uu yimi, iyadoo aad ugu mahad celisay kuna ammaantay doorka uu ku leeyahay badbaadinteeda. intii jidka lagu sii jiray, Mary waxay fadhiday kursiga dambe ee gaadhiga, waxaana la saaran madaxweynaha shirkadda. maadaama darawalku waday, darawalku ayaa si kedis ah bareega u qabtay, isagoo raba in Mary iyo maamuluhu isu dhowadaan. maamulaha shirkadda ayaa wuxuu si fiican u jilayay inuu xanuunsan yahay si Mary cabaar ula sii joogto. subaxa dambe, maamuluhu wuxuu Mary ku amray inay ka shaqayso xafiiskiisa. waxay ku aragtay nabar wejigiisa kaga yaal, isagoo iska dhigaya tuugtii xalay wax yeeleen. inkastoo labadoodaba isjeclaadeen, haddana waxba layskuma sheegin. Mary iyo madaxweynaha shirkadda waxay noqdeen saaxiibo isu dhow, halka shaqaalihii ogaadeen in aan boosku aad u qalafsanayn ee iyagu aad u baqayeen. Mary waxay ahayd qofka qudha ee ku qososha booska weydiisa su'aalo aan dadka kale kula dhicin. qaybta labaad ee barnaamijka waa soo wadaa haddii like badan arko, waxaana ku soo gelinayaa hal maalin gudaheeda.